waxaan u mahad celinayaa madaxdiina soo dhaweysay ee ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Aalto iyo gudoomiyaha degmada Maxamed Macalin iyo madaxdii kale ee gobolka iyo degmada sida wasiir Khadiija sheegtay wasiirka gargaarka iyo ka hortagga masiibooyinka waxaan ku nimi shaqo iyo amar ka yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo uu amray in gurmadka abaaraha laga dhigo mugnaanta koowaad ee qaranka arrimaha xuska xorriyadda lagu wado gacanta labaad gacanta koowaadna loogu gurmado dalka sidoo kale waxaan wargelin soo siinay madaxweynaha state-ka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen waanu sheegnay inaanu xudun tagayno markaan xudur tagnana aanu gargaarka geynayno sidoo kale waxaan soo dhaweeyay gudoomiyihii gobolka Bakool Aalto waxaanu maanta marti u nahay gudoomiyaha degmada Maxamed Macalin runtii xudur waa magaalo weyn oo taariikh ah duruufta hadda aanu dadkii aanu la kulanay ku aragnayna xanuun gaar ah nagu sii beerta xudur waa magaalo madaxdii gobolka waa magaalo qadiim ah waa magaalo diimeed waa magaalo dhaqan waa magaalo wax soo saar waa magaalo tacab waa magaalo xooleed waa magaalo ay ka yimaadaan dadka Soomaaliya macnaha ku leh waaweyn ee la garanayo gudoomiyaha golaha shacabka halkan uu gudoomiye ka ahaan jiray Sheekh Aadan Maxamed Nuur gudoomiyaha degmada Xudur ayuu ahaan jiray 22 sano ka hor af Soomaaliga oo dhan gudidii qortay ninkii haysan jiray Sharif Saalax halkan waa dadka Soomaaliya macnaha ku leh ayay dhashaa waxaan kaloo taariikhda ku soo gaaray magaalada dadka ugu quruxda badan ee Soomaaliya ka yimaadaan inay Xudur ahayd waliba gabdhaha marka la sheegayo maanta dadkii aan soo aragnay quruxda ka muuqatay laakiin waxa ka muuqatay duruuf weyn quruxda asalka waad arkaysay laakiin waxa ka soo horeysay macluul iyo gaajo iyo warwar iyo dhibaato ay keentay duruufta ayaa waxay qarisay quruxdii iyo qiimihii ay u dhasheen wayna taabatay shan wax baa ku kulmay dalka oo dhan abaaru waa ka jiraan laakiin magaaladani waa ka sii xag jirtaa dalka oo dhan jamhuuriyadda oo dhan abaar baa haysata xun waliba laakiin gobolka Bakool waa ka sii xag jiraa degmadana waa ka sii ugu sii liidataa 2021 sanad iyo 6 bilood ka hor ayaan anigu golaha wasiirada keenay ajande aan leeyahay xudur ha loo saaro guddi gaar ah oo soo baadhay 12 sanadood waxa ay cunaqabatayntu u saaran tahay rikoorkay ku jirtaa archive-ka guddi xaqiiqo raadin oo feer federaal ah loo diranay 12 sanadood magaalo kale oo Soomaaliyeed oo adduunka ba qasam mooyaane meel kale ma jirto waa qase iyo xudur labada meelood oo cunaqabatayntu dunida saaran tahay qasal London bay baabuurtu ka tagaan iyagoo cunto sida markaasay qase geeyaan wallahi baabuurtu intay London iyo Paris ka dhaqaaqaan bay yiraahdaan qase cunaqabatayn baa saaran markaasay geeyaan 12 sanadood baabuur bay dhaba ka yimaadaa xudur ma soo gelin waana 120 kilomitir waa masiibo shan wax abaar iyo gaajo iyo shuban hadda bilaabmay inuu kala wareeyahay inuu shuban biyood yahay inaan garanaynin colaad abaartii guud ee dalka masiibo oo dhan ayaa dadkii haysata kiila bariisa habeenkii dadka loo wareejiyaa sida maamulka gobolka iyo degmadu noo sheegay kiila la isku wareegaa dadku waa dhimanayaan haddii aan degdeg wax looga qabano waa lagu baabaayaa waxa ka dhacaysa waxaan taariikhda weligeed la arag dhowr sano ka hor magaalooyinka ugu dadka badan bay ahayd 20 kun baa laga yaabaa inay deganaayeen meeya dadki waa wax qaxay iyo wax dhintay iyo wax baabay waxaan rabnaa oo aan baaqan u jeedinaya qof kasta oo Soomaaliya oo dalka gudihiisa jooga oo dalka dabadiisa jooga madaxweynuhu amarku bixiyay waa sax waxaanu halkan fariin uga sii darayaa waliba madaxweynaha gaaro u tagaya waxa leeyahay dadka deegaanku waxay rabaan madaxweynaha indhahooda ku aragto u timaadaad aragto bay rabaan si aad duruuftooda u aragto
nimanka cadowga ah ee dadka ka xidhay jidadkana waxaan leeyahay waxaa nasiib darro ah Soomaaliya dawladdii waxay ku dhacday 91 iyadoo 86 degmo 20-30 kalena waa samaysmeen degmooyinka Soomaaliya oo dhan xudur maxay bixisay horta maxay kaligeed in xisaabka ugu jirtaa rag way istilaa waa dagaalamaya oo istilayna xabadda inaga dhaxaysa laakiin hooyada habeenkii wayse qabka ku tukata ee salaada cisho tukata ee caruurkeedii yaraana ka shubmayo ee maalintii sooman inay gaajo u dhimato ee muslimada habeen iyo maalin cibaadada u taagan diinta ma naqaan meel kaga taala diinta islaamka waa raxmad waa cadaalad waa naxariis weey rasuulku kaleey salaatu wasalaam weligii magaalo ma weerin isagoo aan aadaan dhageysan wuxuu oran jiray waxaan ka baqayaa qof muslima oo magaalada ku jira haddaan magaalada weerareen ku dhinto 20,000 oo muslimiina ayaan gaajo ku dilayaa diinta ma naqaan diinta islaamkana maaha meel la kaga mataalo alaysa minkum rajul rashid baan leenahay yaga war qof xitaa damiir limeeyay ku jirin qof inuu damiir leh baabuurka waa la gubaa dameerka waa la gubaa qof wixii soo booyada biyaha sida waa la gubaa biyo la'aan baa magaalada loogu dhimanaya sababtay waxa la waayay riigii daloolin lahaa ma iman karo magaalada dadku haraad bay u dhimanayaan haddaan bishan soo socota biyaana helin waxaanu rabnaa nasiib darradaasna inaanay sii jirin waan warwaraa markaan taariikhda akhriyo wadanka Iceland la yiraahdo islaanta ku nool muslim ma oo masiixiyad haday rabto nabad bay ku seexataa nabad bay ku nooshahay ma warwarto barafkaas iska dhex nooshahay hooyada Soomaaliyeed xudur joogtaa maxay gaajada ugu dhimanaysaa maxay colaadda ugu dhimanaysaa maxay ugu dulmantahay oo leeyahay diinta islaamka lagu dilaya islaanta Iceland joogtaana ay nabadda iyo farxadda iyo kalgacalka ugu seexanaysaa wax damiirku aqbali kara ma diinta islaamkuna ma ogola dawladnimaduna ma ogola waxaan ula hadlayaa si Soomaalinimo ah si islaamnimo ah si bini aadanimo ah wardiinta islaamku gabadha ay ku gashay ay biyasiisay waa baahayn wey war 10,000 oo qof baa raad u dhimanaya ma aqbali karno waxaanu leenahay gurmad degdeg bay u baahan tahay dawladnimo inooga baahan tahay state-kay uga baahan tahay dadka reer Bokool ee dalka gudihiisa iyo dabadiisa joogan inay fadhiga ka kacaan bay u baahan yihiin kow isxoreeyaan laba isu gurmadaan saddex Soomaali baaqooda gaarsiiyaan codkoodu wuu gaaban yahay waxaad u malaysaa radio baytariga ka dhamaaday reer Bokool iyo reer Xudur lama maqlo qayladooda wallaahi haday ka dhici lahayd waxa degmada ka jira degmooyin kale haday ka dhici lahayd Soomaaliba ma seexateen سوبر سامة هوسير والله إنني سومالد ساحتين هدي دقمة كلا كده على هيد وحما أنت كتير خير حضور يرهير بقول واجدنا والله قطع دبعتنا وروجنا فدقة هلا قطعوا أنا قلت فرهين توقعنا مدحوينا هنا وجارسيننا رئيس الوزراء هو جارسيننا رئيس البرلمان هو جارسيننا سومالي وجارسيننا ما أنت واحد ندين سننا معها وحكوف لنا شعبك غير حضور لكن فرهينتا أنو سيدنا وحي كوينتاي 10 diyaaradood فرهينتا أنو qaadayno iyo message-ka aanu dirayno ayaa wuxuu ka macna badan yahay 10 diyaaradood iyo 10 gurmad waxaan rabnaa farriinta iyadan 10 milyan oo Soomaaliyeed inay arkaan war dadka biyo la'aan bay u dhimanayaan war dadka shuban iyo caafimaad darro u dhimanayaan war dadka hal baabuur uma soo gali karo nabadgelyo darro u dhimanayaan cadow baa meel kasta kaga wareegsan war dadkii beer ma haystaan beerahoodii way baaba'een dadkii gaajo u dhimanayaan waxay cunaan ma haystaan hawloon bay ma waxaan daawanaa ummadda inta laga dusheena ku rogmato dalkoo dhan xaalad emergency ku jira oo abaareed waa si kala dardaran yahay waxaan rabnaa halkan in laga bilaabo madaxdu halkan timaado la gurmadku muuqdo insha Allahuna dadka la badbaadiyo waana badbaadayna aad iyo aad baa mahadsantiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa roob khayr qaba cirku waa cusub yahay waan aniga arkaya daruurta laakiin waa inaan isku tashanaa waa inaynu gurmad ka badinaa waa in aynu noqonaa ummad
aan iyadoo nool aan dhiman soo taagan gurmadka waa wadaynaa magaalooyinkii kale aanu tagi doonaa insha Allah iyaguna isteediyadii kale maalmaha soo socota sidoo kalena baaqana waa wadaynaa laakiin meel gaar ah bay nagaga taalaa magaaladani maadaama ay duruufaheedu gaarsiin yihiin oo ay abaaraha waxa u dheer col iyo biyo la'aan iyo masiibooyin kale oo dabiici ah u dheer iyo 12 sanadood oo wadooyinka ka xidhnaayeen ayaa u dheer intaas u dheer gobolkan iyo degmadan bahda miidiyaha iyo warbaahintana waa salaamaya reer Xudurna waxaan leenahay idinkama maqnine reer Xudurow reer Bakoolow reer Koonfur Galbeedow waa idin maqnaa waa mahadsantiin